شيء وين بلا شيء شيء وحالة هذا قيادة فردية أسرية دقالك وحا مارينيا وقف أنبوا قويس يا مارينيا وخليجك تنوح هذا قيادة مؤسسية أنش تشينو يا ما مارينيا ما قف مرشدكو مكتب الإرشاد يقول وحاجرة إلا يشان أورور أو واوين أو مجلس السيارة الدستور كإيطاليا كخبراء هذا كمارة بنت حرس الجمهوري إنتاس أو قفو كل دون آراء كل دول له يا إما رسميسكا إذا يكا مارينا لا إسكمرا وافق أيو واحد ديان دي بالس كريا ماشي لو بطل راعيا مركا مؤسسات هي أفراد بكال جتوتا لابد كل دون هذا سؤال متى الله بعد marka ra'yiga la ixtiraamaya qofka dhahay lama ixtiraamayo midda labaad qaraarku waa daakhili Iran khaliijkana waa khariji qaraarkoogu waa dibadda soo waxaad garatay maaha markaasi inay ka calaacalaan iminka ay dhahdaan joogitaanka maraykanka dib baaban u eegaynaaba laakiin su-aal buu isweydiiyey axad alkhubaraa oo la dhahdo doctor maxamed cabdilwaaxid wuxuu yidhi hal yumkinu inay arrintaas sameeyaan inay dib u eegi karaan ya duuna dalika sayf inay qaraar ka qaataan geeri baa ka sogaysa marka ma oran karaan maraykan iska soco ma oran karayaan iyo koo ogaadina inuu joogitaanka maraykanku culays tahay oo Turkey Faisal xataa oo khabiir weyn intelligence American ka soo doonsanaa in bad ka badanayay Washington ambassador ahaan u fadhiyay waxa uu leeyahay asaga laftirkiisa hadda waxaan ogaanay in Mareykanka annaga aan ilaalin jirnay meeshii aan u malayn jirnay inuu asaga ilaalin isaguna hada ciidamada dawladda ilaalin jirtay shicibkuna ku qarqarxiyaan mugta alaysa dhalika ghabaa ghabaa istiraatiiji ma ghabaa istiraatiiji marka safar alxawaali ilaahay ka soo saar xabsiga 30 sano ka hor dagaalkii khaliijka wuxuu muxaadaro galay uu yiri fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah muxaadarada waxaan maanta dhacay ku qornaa dhalinyaro ahaayeen waqtiga isaga iyo Salbaan Awday dhalinyaro ahaayeen waxa la oran jiray waxay ahaayeen khubaro istiraatiijiyiin oo si arkaysi meesha ay wax ku dhamaan doonaan asagana wuxuu sameeyay Salmaan xillidaas waqti u dhow ماذا بعد العراق سامات الله صعده ولذلك waxay dhahdaan culimadu waxay dhahdaan waxa ay qoreen dhalinyarada Sibiriya buug yar bay qoreen markii daba walaal kala baxsaday waa la helay waxay qoreen inay khaliijku noqon doono mantiqa mustacmara taxta wisaaya amrikiya marka hore ma ahaan jirin wuxuu ahaa meel sheeda laga xukumay bas hada waa la gumaysan imika waa gumays waa mubaashir wisaayada waa dul taalaba marka taas ay sii qoreen inay noqon doonto tii baa la socotay imika marka farqiga u dhaxeeya labada ummadoodii iyo labada dawladood dawladan iyo dawladahani waa taa weeyaan kuwani waa dibadda laga xukumaa tanna gudaha laga xukumaa midda labaad wax weeyaan kuwani qof baa xukuma iyo qoys halkana mu'assasa xukunta si cilmi haddaan u dhigno wax weeyaan weli waa ugaasiyo waxa xukuma meesha ismadii dawla alxadiisa ma beddelanba fi alkhaliij دولة حديثة خليجها كم جرتو أضياشي وحكمه والله عقله العقتنا وحيلين محمد غزالي رحمه الله وحو قرأ كتاب وبرجي ومارة خليج كذلك يسوي دعاي يو كتاب كقرأه وحو أورنجري عجيب بريا لليرا هو أنا خنجري يعني هو عجيب وحو أورنجري بقول كيبا لباتن ياكو صار نقطة وطنة عربتها بترك بقول كيبا سديتها ولا قاطها عجيب دي بدأ قاطها نحن لا ندري منها شيئا لكن بقولي ولا تقابل الدوقي بولي وحوينا نقرنا بولي بقولي جدا ولا قاتا بولي شركة قاتا ولذلك يمكن الشركة هفرديها يعني مريكا وحو سبيل ما تقانا ذلك مركو دعاي داد كيسي وقرتي أو وحو شاقينا مارة إنك يمكن شاقي سي مارة تركي الفيصل داد كيسي وقرتي وحو قرتي خبرة ديسي عيدا كيسي وقرتي وحو قرتي محاكو هذا وحي أردن لكن dadkii uu lahaa waan ilaalinaya muxuu yiri maalintii Trump uu khubad akhrinayay oo la hadlayay boqor Salmaan 7 cisho hadaan ku difaaci waayo ma jirin waan ogtahay inuu keeyo daawa wuxuu sheegay
20 bilyan sii maraya kala dhuumanayaan gartay sheekh marka dhinaca kale laga eego cutubka naftirkiisa dagaalka dhanka bariga dhexe wuxuu yeeshay saameyn ballaaran oo dagaal iyo bamba kaliya loo maleynaya laakiin uu ka ballaartay intaas maxaa ballaarashadiisa kamid ah sida uu saameeyay dhanka dhaqaalaha iyo amniga oo kale yaa faa'iidaya marka su'aasha isweydiinayna waxay yaa faa'iida yaa مثلا ka faa'iidaya sayaa khasaaraya labadaas dhinacin isbarbar dhigayna hadda ka hadalna horta ma ogtahay dagaalkan ayaantii ugu horeysay labadii cisho ugu horeysay ee dagaalku dhacay ma wajin waxa la isticmaalay ma ogi waxa la 2 bilyan iyo badh ilaa 5 bilyan oo dollar ayaa ku khasaartay labadii cisho ugu horeysay imikana ayaan walba 1 bilyan oo Mareykanka ku socota Mareykanka ku socota marka adiga xisaabi 1 bilyan oo dollar each day oo Mareykanka ka baxaysan waxaa maqan khaliijka lacagta bixinayaan ay ka bixinayaan taxta taawila miis goostiis ay siinayaan Mareykan iyo reer galbeed waxaad ogtahay inay u tageen Turkiya u tageen Itaaliya Talyaani u tageen Faransiis Jarmal Spain inta waxay ka codsadeen hub غير عادية hubkii Mareykan wuxuu noqon way marka khasaaro weyn ba meesha ka socda oo rahiib ah shaki male iyadana in Iran khasaaraha soo gaaray markii la qadaray ee la isku celceliyay waxa 100 milyaar ba yaraan gaadhay Iran khasaaraha gaadhay waa 100 milyaar maxaa yeelay waxa la baabiyaa inta lagu qiyaasay joogta gaartay waxa la baabiyaa dhulkii batroolka waxa la baabiyaa dhulkii biyaha waxa la baabiyaa meelo waaweyn xariim militariga marka la isku geeyay ilaa 100 bilyan oo dollar oo khasaaraha ayaa soo gaadhay laakiin khabiir Shiina wuxuu yiri dawladda Iran waxay ku tala gashay khasaare inta ka badan waxayna dhigtay kayd ilaa dhowr sano ay ku noolaan karto intuu dagaalku socdo doo dheeraada laakiin waxaa la isweydiiyey su'aal ah khaliijka maxaa u yaala kayd dagaalku hadduu dheeraado li'aana dagaalku imika wuxuu keenay in la xidho madiiqii Hormuz waa la xidhay isaga waa lagu guulaysan wayna dhigeen boobkii qarxay yay gaadhsiiyeen Mareykanku xalay habeen hore wuxuu yidhi war markabka marayo anaa ku kaxayna soo geesiyaal noqdo kaalay buu ka yidhi calina rajaan wuxuu yidhi bal markaa mid isku day inuu maro waa la qarxiyey Mareykan la waliba aan galbinay bal waxaa la sheegay markabka ciidanka diyaaradu ka caan inuu durkay dib u carreylay marka xarbul madaayiq waxaa soo socda badda cas in la xidho wuxuu yidhi Mushtaba khudbadu akhriyey khudbadiisa waxaa ku jiray dagaalku wuxuu noqon doonaa dagaal meelo kale ka bilaama oo meelo kale la xidho meelihii kale la isweydiiyo la baaray waa musallas waa saddexun in la xidho badda cas baalmada weli badda cas maaha baalmada in la xidho iyo in la xidho Canal Suisse inta haddii la xidho maxaa dhacaya 60% waxaa dhaadhacaya batroolka adduunka yaa xidhmaya arrintaa maxaa ka dhalanaya markaa sheekho $100 ilaa $105 buu socdaa barmiilkii soo maaha 4 sano ka hor meeshuu gaadhay waa mika gaadhay waxaa la filayaa 30 sano ka hor meeshuu joogay inuu kusoo noqdo oo 160 uu taabsado annaka gobollada Mareykanka New York ee ka mid tahay uu kacay nin baa shubanayay maalin dhaweeto gaas wuxuu yidhi baabuurka waxaan ku buuxsan jiray $40 maanta waxaan ku buuxsanayaa $70 marka imsuu kacay waa 80% yuu sara kacay Yurub uu kacay Canada uu kacay Afrika iska daa uu kacay marka batroolka kacaya dhaqaalaha adduunka kacaya walidaalika waxay leeyihiin mushkiladda ugu weyn ee soo socota wax weeyaan waa mushkilad dhaqaale inuu dagaalkani keeno hadduu sii dheeraado waana la filaya inuu sii dheeraado weliba dhaqaalahaas iyo batroolkaas kacayana wuxuu saameyn toosa ku yeelan doonaa doorashada midtermka ee soo socota 100% Jarmalka
wuxuu bilaabay inuu ruushka ka soo ceshado haddeeto inuu ka iibsado gaaskiisii Trump naftiisuna uu fasaxay wuxuu yidhi 100% ka laga iibsado haddeeto isaga cunaqabatayntii raashka saarnayd uu ka soo qaaday Hindiya wuxuu yidhi waxaad u baahan tahay ka qaado Hindiya ruushkuna wuxuu yidhi anigu hubka maaragtay gaaskayga yurub kama iibinayo ilaa yurub cunaqabatay ku haysaa waxaan ka iibinayaa buri Asia marka cunaqabatayntii yurub ay ku haysay ruushka ayadu hadda ku qabanaya wayba dhinac kale wareegtay laakiin waxaan ka iibinayaa buri Shiinaha wuxuu ku iibin jiray isagoo gaaskiisa markii cunto lagu qabtay $30 wax keen yuu ku iibinay laakiin markuu sare u qaaday 100 ku keenay laakiin waxaan ka iibinayaa buri wadannadaasi marka masaaib qowm fawaid inda qowmin aakhariin kore u qaaday gartay marka taasi baan maartay isla cutubkan su'aashiisa ugu dambeysay aan ku weydiinaya sheekhana waxaad og tahay oo la socotaa in ay jiraan awoodo kale oo ka baxsan gobolka hadda uu dagaalka ka socdo haddana saameyntooda leh sida xaqiiqada ah maxay tahay saameyntooda ku aadan dagaalkan horta 3 awoodood weeyaan mandiqada mid baa ku jirta labana dibadda ka taagayeen midda mandiqada ka midka ah oo naatana ku jirta waa Turkiga labada kalena waa Shiine iyo Russia Shiinuhu waxaa la og yahay ilaa imika inuu Iran hub xitaa imika inay diyaarada soo rido bariyaan dambe hubka diyaaradaha lidka ku ah isagaa u keenay Shiinuhu wuxuuna sameeyey hub diyaaradaha lidka ku ah kuwa Maraykanka ولذلك أمريكان كوجوجي داردي ووينايا علوصاين وغير كسو قادو لأنه وحو كبقيا إن لسكو ماشي لسكو ميزامو أو هدي دياردا لسوريدو مثلا شاني صدق هدي لسوريدو أم بأف لحي طمك هدي لسوريدو أو إيران أي إيران سوريدو إمكا waxay taasi ka dhignaan doontaa in ay shiinihii meesha uu joogo oo hubka waa la isku tijaabinayaa waa tajribo arrin labaad baa jirta ruushku wuxuu siiyey kull almacluumaat fi sharq alawsat oo ay satellite-ku duubtay iiraan buu siiyey walidaalika iiraan waxay baabiisay ilaa 10 raadaar oo maraykanka ku leeyahay bariga dhexe madaxweynaha Trump baa sheegay raadaaradeeda waxaa amarka bixiyey waa Putin okay maxaa dhacay marka raadaaradii la bixiyey markii la burburiyey maxaa dhacay arrin weyn baa dhacday waxaa dhacday saaruukhii marka uu sii socdo la qabanayey waxaa sii sheegi jiray raadaarada khaliijka la sii sheegi jiray markaa ba isdiyaarinaysa Israa'iil waxay dareemaysaa inuu u dul joogo bahalkii arrintaana ruush baa yaa wadaa Shiinana wixii gargaar hoostu ka wadaa labadan maxay ku heshiiyeen markaas ruush iyo Shiina maxay ku heshiiyeen waxay ku heshiiyeen inay Iiraan noqoto Afghanistan waa meesha ku dhacay ruushku dowladdii weyneed ee midowga Soviet loo oran jiray waxaa lagu riday Afghanistan dhooqadii Afghanistan bay ku dhacday alwax al-afghani Maraykan waxaa rabaa inuu ku dhaco alwax al-Iiraani oo gargaarkii ay bixin jireen wadannada reer galbeedku ay siin jireen Afghanistanida mujaahidiinta Afghaaniinta waa in la siiyo dowladda Iiraan si ay u dagaalami karto waqti dheer waqtiga dheerna uu keeno inay dhooqadu sii dheeraato waana ta keenaysa in Maraykan yidhahdaan war meeshaan waa ka baxaynaa walidaalika xalay toole ilaa habeen hore Wiktof wuxuu la shirayaa Netanyahu telefoon wuxuu leeyahay adeer waxaad ku jirtaa halis adigu jiritaankaaga halis ku jira annagu kuma difaaci karna intaan ku difaacnay in ka badan dagaalka jooji Netanyahuna wuxuu leeyahay diyaarad baa wada saaranaya ama wada joojinayna wada dhimanayna ama wada guulaysanayna meeshii Iiraan ay saas ka lahayd khaliijka ku lahayd sheekhana waxaan u gudbaynaa marka laga eego joojinta iyo sii wadista dagaalkan socda su-aasha koobaad oo raba inaan kaa weydiiyo cutubka u dambeeya ee saddexaadna waxay noqonaysaa istiraatiijiyadda Iiraan ee dagaalkan maxaa siday rabeen u dhacay se maxaa isbedelay sax weeyaan laakiin jazaak Allah khayr su'aal fiican weeyaan horta Iiraan markii dagaalka lagu soo qaaday amba laga fikiray dagaalka la soo qaado waxaa la diraaseeyay maada yuriiduun reer galbeedku maxay rabaan waxaa u soo baxday in la baabiyo hubka nuclearka in sawaariikhda xadkooga la yareeyo in sheekha la dilo amba nidaamka siyaasiga ee waddankana la burburiyo amba la laxiifiyo iyagu markaa istiraatiijiyadda markay akhriyeen
waxay dhigeen istiraatiijiyadoodii. Istiraatiijiyadda Maraykanka iyo Israa'iil waa istiraatiijiyatul hujuum, weerar. Istiraatiijiyadda Iiraaniyiintuna maxay waa difaac. Okay, maxay ku dhigeen baa difaac? 4 arrimood bay dhigeen. kow waxay dhadeen baqaa nidaamku inuu dhicin. wax kasti oo keensanaya nidaamku inuu dhicin waa in la sameeyo. waxay u arkeen dagaalka menas jiritaan. nidaamka Iiraan oo dhaca, jiritaanka Iiraan baa burburay. dawla waxaa burburay jiritaankii shiicada caalamiga ahaa. idan laabudda min adifaac, waa in la difaaco. taasi waa kow. laba waxay dhigeen xifdu lwatan min ataqsiim. waddanka in la qaybiyo, in laga ilaaliyo. khudbaddii mujtaban ay ku jirtay marka, iyo khudbaddii laarajeniba, in aan qaybisa waddanka laga ilaaliyo. istiraatiijiyaddana waxaa ka mid ah in la qaybiyo. ka bidaaya 2 qolon laga soo saaray imika ahaan, kurdida iyo carabta. marka taasina waa in laga ilaaliyo. arrinta saddexaad waxa weeyaan, waxay kor u qaaday mustawaha jalanjiga. jalanjigu markii hore muxuu ahaa? Iiraan buu ahaa, Libnaan begiisi. imika waxay ku wadaa geeska Afrika iyo waxay ku wadaa Yaman. waxaa kaloo soo socda ay ku wadaa gudaha khaliijka. rafcu mustawa taxaddi, kor u qaaday. marka taasina waa istiraatiiji ay dhigtay ahayd. arrinta afraad ee ugu dambaysa waxa weeyaan, dagaalku si uu muro ay uga dhalasho ay Iiraan ay leedahay, waa inay dagaalka iyadu dheerayso, maaha inay gaabiso. iyaguna muxuu ahaa istiraatiijiyadoodu ka gaadhsiiyey bobsiisba, iyadana waa inay dheerayso. waxayna aaminsan tahay xarbul istinzaaf, dhiig furad. hadduu Israa'iil ma qaadi karto dagaalka dheer dhiig furadka, istiraatiijiyan ma qaadi karto. marka waxay ku tala gashay inay, walidaalika waxay dhahdaan culimmadu, Israa'iil dagaalkii ay Gaza ay gashay, dhaawac waxaa soo gaadhay jiritaan, waa la qiyaasay 20 ilaa 25 baa u nool jiritaankeygii. iyadna waxay leeyihin kani wuxuu keeni doonaa 25 kale inuu ka baabiyo, 50 bay imanaysaa. tahdiidkii wujuudiga kusii biiraya. marka taasay ahayd istiraatiijiyadda ay leedahay dowladda, maxaan ku dhahdaa, ee Iiraan. imika markuu dagaalkii dhacay, maxaa u soo biiray? 2 istiraatiijiyad bay ku dartay. laakiin markuu dhacay dagaalka inuu u bedisho amni bariga dhex oo dhan, khaliijka oo dhan, waa taa. iyo inay u bedisho dhaqaale, oo istinzaafkii ku socon lahaa Israa'iil ay ka dhigtay istinzaaf dawli ah. dunida dhan halis bay galaysaa. marka taaba maartay ayaa ku soo biirtay. marka istiraatiijiyaddu waa taas, iyo maartay dowladda Iiraan. sidoo kale khubarada istiraatiijiyadda falanqeeya waxay ku kala tagsan yihiin oo isku khilaafsan yihiin mustaqbalka مثلا siyaasiga ah ee Iiraan. muxuu yahay farqiga u dhaxeeya oo daraskooda? okay waxay soo saareen khubaradu 4 fikradood oo darasa jirta, oo mid walbaba waxaa ka dambaysa iskuul istiraatiijiya ka dambeeya. matalan iskuulkan amba aragtida uu qabo Nufaysi waxa weeyaan, nidaamku ma dhacayo, uu salaxiifi, uu daciifi, waa siina rooyadkaasi, laakiin ma dhacayo. ka labaad waxaa qaba nin la dhahdo Dr. Maxamed Cabdulwaahid. wuxuu qabaa Iiraan waxay ku jirtaa intixaar siyaasi, ismiidaamin siyaasadeed. burnaysaa. mustaqbalkeegu waxa weeyaan imaa cusla, inay ka go'do mandiqada, wa imaa suquud. waxa ku socda dagaal iyo huba, halkaasuu keeni doonaa. qolo saddexaad oo istiraatiijiyiina oo Shiinaha ah waxay leeyihiin Iiraan waxay bilowday iska maartay caabin istiraatiiji ah oo taariikhda ku soo daraysa inay noqoto quwad aan tirsanno haddaan nahay dadka Maraykanka la tartamaya. ka Iiraan waxay ku soo biiraysaa arrintaas, waxaana qaba dooqiin xitaa yaa qaba. qolada afraad waxay qabaan Iiraan inay istasaxdo gudaha, ka khaldan inay saxdo. oo soo baxo murshid mushtaba ahayn,
oo murshid dhaxaada xiwaar la bilaaba oo sida Mareykanka uu rabo Israaciiso maya xiwaar buu la bilaabaya dawladda Mareykanka بعيد عن إسرائيل سوى إسرائيل لشيكسترين أريد وحي كيني دونتا فري دونتا إنه خليج كعلاقة دي لسوء الشدو والله الصحو مركا إلا أي أفر نينو واوين أو علماء واوين أو قبان كرا أي طولان نقو كرا ياقب فكرة إمامته وحرنته ولا نحضو المنطقة ليست أمنية وإنما حضارية وسيفيليزيشن باي نور دحيا إسلامك باي نور دحيا نلول باي نور دحيسا إن مريكنا وعدو حوق بدن وخطر إن كل لحنا وفي عنتهاي ديمنا الاسكور ديسو لكن لقيت تنازلين علاقة اللي هي روش كيشينها أو علاقة استراتيجية رقبة قبار أفرتاسي يا إمك يا لا مركز أفرتوه مركز في رصاد أكتي آخر سكاجا أذيك أفرتوه كو أدين yaan bias ahayn oo aan udruskiisa dan ka lahayn oo si waaqic ah u eegayo samxay afartooda marka akhrisay maxaa ku soo baxay horta fikradda Nufaysi waan soo dhaweeyay marka aan ka tago fikraddan dambe uu qaatay ee inuu Iran ay ka cadowsan tahay Israa'iil oo khaliiji ahaan u eegayo laakiin marka aan eego inay tahay dawlad mu'assasatiya oo si dayala aan ku dhacayn لكن دي ودولة وبشر ولا حيفز أتوقع قادرنا لا وقاري مدة كلا إن حواركي جودها كصعدي الدولة إيران مدمن دورشة مشتبه ما هين دورشة طبيعية هاي دورشة غير طبيعية وحكينا صدق حرمات لمبر 1 وحكينا وجوابين ترامب كون نعبيان دورنا كحمين لبا waxaa keenay ninkan inuu la saaxiib yahay xaraska ilaalada dawladda ciidanka ugu qatarsan ciidankaasina waa ciidanka waddanka maanta haya mowqifoogan anaga maalinta hore ka sheekeynay mowqifoogaana socda sax midda saddexaad isaga loo doortayna wax weeyaan waa nin sidaan imika sheegi doono takwiinu dawladda la soo koray oo aad u haya marka ninkan saasaa loo doortay laakiin haddii duku nature ahaan lahaa tabiici ahaan lahaa lama doorteen mana yimaadeen isagu waxay u arkayaan dad badan oo Iiraanina waxay leeyihiin ma waxaan diidanayn baan ogolaan oo dhaxalka odayga wiilkiisa bedelay saas qarleen gartay khubarada istiraatiijiyadda ay soo arkaan iyo falanqeyntooda daraskooda ku aadan waa sidaas laakiin dadka hadda markii warka soo baxay mujtaba la doortay waxa la isweydiinayay horta waa kuma mujtaba Khamenei sababta loo doortayna maxay tahay asaga maxaa loo doortay horta akhi fillah مشتبه هدان تاريخ دي سواحر كير عضو انت بدن والله ما مقلي وما دام اذا عضوه دبا كشكي لكن waxa aan laga hadal ban ka hadli doona insha Allah gartay horta mujtaba Khamenei waa ilmahii waa inankii labaad Khamenei nin ba ka weyn yaalkiisa Khamenei ninka isaga dhalay oo inankiisa labaad labo daadiisu waa wasiit waa daada dhexe 69 kii buu dhashay 1969 kii buu dhashay wuxuu leeyahay tilmaamo yaab leh horta ninku dagaalkii wuxuu galay Iran iyo Iraq uu galay dagaalka ciidan buu ahaa 12 jir buu ahaa markaas 16 buu ahaa dagaalkii buu galay dagaalka markuu galay wuxuu ka kasbaday dagaalka khibrad dagaal khibrad siyaasadeed iyo asxaab aabihiina markuu noqday wadaadkii waddanka xukumayay khibradii uu kasbaday ee waliba dadka uu soo kasbaday dhammaantood uu soo qaaday madax bay noqdeen cali al-Rajani baa kamid marka arintaasi waa arin muhiim ah arinta kale ee muhiimka ah waxa weeye ninkani diinta uu bartay laakiin markuu si fiican uma wadin barashada 30 jir markuu yahay ayuu aabihii keeni xawsada tag xirta tag ayatullana uu qabtay wadaad ah wuxuu wax baro oriyaa ninkii uu iskoolkii uu fadhiistay wuxuu kaga soo baxay xujjatul islaam xadada dhinaca shiicada jagadii laga rabay buu gaaray ودون آية الله لكن مجتهد كيبو قالين مركا تاسينا waa mid darajatul ijtihaad kiibu gaarin
mid saddexaad oo khataraa jirta mid saddexaad khatartii wax weeyaan ninkan aabihii wuxuu u noqday saaxibu dil hadh buu u noqday wuxuu kala shaqeeyey almalafaat alkubraa khaasatan almalafaat alkhumaasiya bashirada alqaatila malafka la yidhaahdo doorashada madaxweynaha saa ka shaqayn jiray ra'iiska uu rabo axmed najaadi wuxuu ku saaray xoog malafkaasaa ka shaqayn jiray malaf labaad buu qaatay almalaf aliqtisaadi dhaqaalaha waddanka malafkiisa wuxuu la saaxiibay dadka dhaqaalaha dalka haya adduul camiiqa saa gacanta ku hay malaf saddexaad buu qaatay malafka securityga amniga malaf afaraad buu qaatay malafka dhalinyarada shabaab dhalinyarada uu qaatay iyo isboortiga malafka shanaad uu qaatay malaf alcilaaqaat adawliya xiriirka caalamiga intaas markuu qaatay waxaa iminka su'aal baa taala mujtaba doorashadiisu waxay keensanaysaa ragga dowladda xukuma waayo iminka waxaa laisku waafaqsan yahay mu'asisiintii dowladdu way dhinteen amba way gaboobeen way dhinteen amba way gaboobeen dowladda iminka waxaa xukuma jiilu mujtaba على الرجال يجيل مجتمع حكمه جيل كإمك الدولة حكمه لا بس في لين ويسوي كبداية الصفة الأولى وحال هذا وجيل براغماتي سياسيا ما هجيل إيديولوجي 100% إيديولوجيا دي واحد لكن ما براغماتيين محاصورة قلة شحذا هي ويقان أرنت الله بعد إليه جيل كريم وحويان وجيل دولة كل هو جيل ثورة كعظام بيكون مادي ريفولوشن ولكن دولة ورجال دولة بنكهة سياسية بنكهة ثورية ما يفهمتي لكن دردن ثورية لا مركا وخطورة دانا مشتبه ووطا مركا مشتبه أرنتا كالي أولي وحويان مشتبه طان قيبين وداددا مجلس الخبراء وسيديتن يسيديت نن وحانا أي كسو بحان سيديت كانيني قبل دوورشة كو يمادان قبل مركو قال 500 أو كون وقف بوقف يالن كرا سو ريبريزنت كراي إنك إيران وكطهران وكله لحية توني بمشى ومتشاء ما يجلس خبراء القيادة صدح شقيقة بتاع بس اختيارك مرشدك عسيلات مرشدك سحنت مرشدك مركو وقعت قرارات أتوخل دم إلى قبض وأريما خطرة سيديت دا مشار بقاتان فالنتيرز ورجال الدولة العميقة لكن دوحك لك شقيان وجامعة ده ديغان هولا كلي ليهن بس waxay qaataan shaqada marka ay shirka galayaan baa la siiyaa wax yar oo police ah oo shirka ku qabanayaan laakiin mishaar kuma qaataan shaqadan waa shaqo lillahi oo qabtaan iyo wadan soo waxaad garatay ba waana 8 nin oo odayaal ah kullu waxay gaadheen darajada ijtihaad في الفقه لبا وخبراء في السياسة صدح دو سمعة جيدة في المجتمع أنت أفراد يقدم بيسوا معي ملفات ماله أمنية وخطرة والله دوس عدها وحنا دوس عدها حرسك هدو قفك وكديك وحكوش شاكو لبا أموال حدا أم وحنا نقول كحر أم أوهيدا قصر ماله soo waxaad garatay ba marka ma leexan karaan leexad ma leeyahay ma lagu leexdo ma joogan marka majliska khubarada ee 88 ka saasay u doortaan waxaana maaragtay inta badan maaragtay waxaan yaab la oo kaleeto wax weeyaan majliska la jiro hada siyaaratu dastuur maxay qabtaan samxiin dastuurka ilaaliyaan waxay la mid yihiin majliska Mareykanka ee la raado maxkamadda dastuurka iyo la mid yihiin waxay ka kooban yihiin 12 qof لحنا مرشد كا دورتا لحنا واحد دورتا مدحوينها محكمة يا دورتا لحنا مشكل دورتا ودادو لحنا او دورتا ان مدحوينها محكمة دورا وحقوقيين قانون كي قانون كواسي دمانتود waxa xadidaysa macal kuwan khubarada maadada 19 29 108 ee qodobka 109 ee dastuurka iyo xadidaysa marka mushtaba waa ninkaas weeyaan ragiisuna waa raga weeyaan sidaas oo ku noqday
مثلا كي صدحات waddanka kii saddexaad ee waddanka gartay ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo hadal aad haddaayta tilmaamtay markaad falanqaynaysay مثلا odorosyada qaarkood Iiraan iyo Mareykanka ma laga yaabaa inay iyagu heshiiyaan suuragal ma tahay inay iyagu heshiiyaan Israa'iil la'aanteed intay ka marmaan iyada okay waxaa jira jazakallahu khair waxaa jira saddex hoos ka hadal haye Cumaan ruushka laba iyo Wiktof saddexdu waxay ka shaqeynayaan heshiisiinta ka shaqeynayaan gartay Putin xataa wuxuu soo bandhigay halkan hor yaalla iminka in uraniumka nuclear laga sameynayo in laga soo qaado Iiraan oo la keeno ruushka gartay axios baa qortay si ruushka loogu ilaaliyo Trump uu ku diiday taas laakiin wali hadda Trump Putin ma quusan heshiiska inuu dhameeyo gartay ruushkuna Mareykanku wuxuu rabaa Putin baa soo dhameeyay hubkiina meesha waa laga qaaday waan dhameeyo dhacdo arrinta labaad heshiiska Cumaan meel fiican bay ka jirtaa maalin dhowto Cumaan la garaacay waxay tiri Cumaan macna ma leh garaaca hubka igu soo tuuray waxaa muhiima in dagaalku uu dhamaado aniguna waxaan diyaar inaan dhameeyo meel fiican oo noo socota aniga iyo Cali Rajaani midda saddexaad waa Wiktof iyo Cali Rajaani waa loo kala dabqaadaa aad dabqaadka isaga Cali Rajaani loo kala qaadayo waa muhiim jiddan gartay su'aal waxaa jirta muhiima oo inaan ilaawo aan jeclayn oo ku saabsan haguu joogaa ninkii la oran jiray Mustafa aad baa la isku haystaa mugta waxay leeyihiin rag fara badan Mustafa waa la dilay oo dhintayba laakiin waa munaawara siyaasiya waxaa dhahdaa waa maneefr politik maaha wax ma jiro dhikari qaar waxay leeyihiin wax halis ugu jiraayo ma muuqan karayo laakiin dhaawiciis waa lugaha la dhinta badan mugta waxay markay saas leeyihiin hataa isweydiinayaan maalin dhaweyd statementii uu soo saaray hataa isaga ma akhrinayn inay qofkii akhrinayo wariye akhrinayo marka muu nool yahay ma xaqiiqa u joogaa Cali Rajaani muxuu weli dowladda u maamulayaa kale waa la isku waafaqsan yahay inuu dhaawac yahay laakiin dhaawaciisu intuu gaadhsiisan yahay marka warkaasina waa socdaa Israa'iilna waa loo sheegay inay Wiktof inay suurtagal tahay in la heshiiyo iyada oonan dagaalka iyada aan la heshiin laakiin waxa lagu heshiinay waxaa ka mid ah in Israa'iil dhibaato dambe loo geysan oo la weerari kartay waa kaas aad iyo aad ay umahadsan tahay sheekhana baarakallahu fiik jazakallahu khayran saddexdaas cutub ayaynu maanta kusoo hufinaynaa insha Allah falanqaynteeni ku aadanayd mujtaba iyo Iiraan dagaalka ka socda ee dhanka ka ah Iiraan iyo Israa'iil ay wadaan مثلا Mareykanka daawadayaal inta barnaamijkan oo kale aynu ku kulmayno waa aniga Maxamuud Leedeen idin la fi amaanillah wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh